كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وعشركي لبقل إيو أفرتني أفراد قيبتي لحالي دردارنada iyo ducooyinka. weli waxaan ku guda jirnaa dardaaranadii waxaynu ka bilaabi doonaa konton iyo koowaad iyo konton iyo labaad konton iyo saddexaad ilaa konton iyo afaraad ilaa konton iyo shanaad insha allahu tacaala. kaas waxa ka waraya waxa weeye axsini dhanna biabnaa'ik. qofka muslimka waxyaaba looga baahan waxaa kamid ah xataa marka warbaahinta laga yimaado mar kastaba inuu malaha iyo malihiisa marka waa maxay inuu wanaajiyo ilaa inta aanu dee shayga waa maxay aanu ka arag. ina bacda dhanni ithm, macnaha malaha barkii wuxuu noqon karaa dembi markaa. marka mar kastaba asalkuna waa maxay waa saas weeye markaa oo waalidka waxa looga baahan yahay marka dadka baahanaya macnaha in mar kastaba malahooda wanaajiyaan, ubadkan inay u hagaagi doonaan, fiicnaan doonaan, qurux badnaan doonaan, meel fiican u gaari doonaan, oo aanu markaa waxa waalidku aanu de mar kastaba aanu hiiftaanka iska niyad jab waxa uu iska ilaaliyo marka yiraahdo macnaha waxaan de aan ogeyn aan weli la gaadhin waalidkina wax yiraahdaan ubadkan wax iska bedeli maayaan. marka waxyaabaha kale waalidka caawiya waxa kamid ah baa la shay taas inta badan uga hadho waa inay noqdaan baa laha liinan duuna dacfin, waa inay noqdaan baa laha waalid iska dabacsan laakiin dee daciifna aan ahayn. oo ubadki waa maxay aad waa maxay ugu dhibsanaada markaa. waa inay liin noqdaan kuwada way noqdaan markaa iska jilicsan oo caadi laakiin aan dacfi zaa'id aanay noqon. waxa la way noqdaan baa la waxazman duuna cunfin, way noqdaan waalid go-aan leh haddana aan cunfi iyo adayg waxaasna maxay wax la-aan ku jirin. marka saasay maxay waalidku iskugu wadaan markaa liinan duuna dacfin waxazman duuna cunfin. marka wasiyada ama dardaaranka markaa labiyo kontonaad waxa weeye alwasadiyatu fi tarbiya. inaga ummadan islaamku waxayna dad markaa wasadiya marka dhexdhexaadeen nahay markaa. marka barbaarintu waxay u baahan tahay baa la yidhaahdaa inay markaa dhexdhexaad markaa waa maxay ay noqoto oo macnaha aanay de excess macnaha aanay zaa'idna noqon waxa la ubadkan qaabka haddii noqoto wuxuu sheegidooda hadday wax kasta macnaha ficil kasta qofku samaynayo waa inuu markasta meel dhexe uu ka istaago markaa. meel dhexe waa maxay waa inuu ka istaago markaa. macnaha saas marka waa maxay in hadii macnaha ummadaxayna marka waa maxay wasad iyo marka dhexdhexaada. dardaaran ku xiga markaa 13 waxa weeye mabda'u taqaaful. waxyaabaha waalidku macnaha ka ilaaliya inay markaba ubadka waa maxay ul kula kacaan ama dhibaato u geystaan ama hadal xun ku yiraahdaan ama meesha dhibaato ka dhaco ama khilaaf ka dhaco. waxaa kamid ah baa mabda'u taqaaful wax la yiraahdo. macnaha waa maxay taqaaful inuu iska dhigo waalidku macnaha qof moogan waxaan baan ogeyn markaa oo isagoo macnaha inuu isdhaafiyaba. macnaha cuyubta ama ceebta ama qaladka ama qofka maxay ka dhacay ilmaha yar ka imanaya inuu waa maxay iska ilaaliyo marka isdhaafiyaba. kaasna hadyigii nabiguna saas oo calayhi salaatu wasalaam. marka haddii ilmuhu haddii khalad uu ka dhaco waa iska dhaafaysaa waxay ka caawinaysaa baa la taasi inuu khaladka uu ka tago markaa. labadii waxay adig iyo istagan waxay dii dhaxaynaya baa la yiraahdaa xiriir fiican bay dii dhaxaynaya markaa ixtiraam markaa. waxaana la yiraahdaa fal khayru yanshu wal aybu yastur. markaa wax hadday ceeb tahay oo qalad ay tahay inta badan waxa fiican in la asturo markaa. ceebtu waxay ku fiican tahay asturaadda, khayrkuna wuxuu ku fiican yahay faafinta markaa. marka ilmuhu wada ratay waxyaabo qalad soo gaarsiinaya iska moogano markaa waad u yarjada marka waa maxay waad ka dhacaysaa marka xogaa waa maxay waad iska macnaha waa maxay marsi aad u sii raaci meesha marka. dardaaranka 54 waxa weeye ahmiyatu tanaasub alciqaabi wathawaabi maca atifl. marka ubadka aad wax siinaysid oo kale ama aad abaalmarin siinaysid oo kale ama hadda markuu dembi galo aad rabtid inaad u sheegtid ama aad ka reebtid oo kale shayga aad ku abaalmarinaysaa iyo waxa iyo meesha uu taagan yahay waa inay munaasib noqdaan kuwa macnaha waa maxay isku habboon waa inay noqdaan. oo macnaha aanay dee saahan hadda waxa la yiraahdaa haddii ilmihii iskuul dhexe uu ku jiro oo kale ama iskuul hoose uu ku jiro oo wax fiican keeno baa la yiraahdaa de qofkaasin gaari iyo mobile iyo wax sare laabto waxa in loo keeno waxba uma baahna munaasib ma aha. maxaa ka badan waxa isagu markaa iskuulka uu ku dhiganayo inuu maxay xadiidhaan markaa maxay loogu keeno oo qalimaantiisa iyo buuggiisa yar iyo haddana naanaciisa chocolate waxaas ka badan. marka waxa la yiraahdaa
هذا قفك ثواب كما كان أبال منيس أو كله stage وتاجين يا مدار وتاجين واحد شيء مركا وقبنا يا كله وحكوها بوم بالله السماية هذا رادد عقابتنا وحلا يراهدا هدي قفكي تصالحان المهي هدو دي وينادو أو كله تصالحان oo tusaalahaan dee waxaan leeyahay balwadaha dadku isticmaalaan oo kale ama balwadiisa uu bilaabo dee hadduu mid sigaarkii bilaabo hadduu sigaar hadduu cabo mid kale hadduu laga yaabo xashada iyo khamri iyo waxyaabada ay waaweyn macnaha uu doono ilaahay ma keenay macnaha saan isa u kala weyn tahay waxa la isku ciqaab ma noqonaya ha qaabka macnaha waxay ula mucaamalaysa totally waa maxay u kala duwanaanaysaa marka ha haddii mid waa maxay sarahan uu hin badan yahay midna qaylo badan yahay sidan yahay qeysan yahay midna haddii mataqaana marka ay xarakaadkiisu badan yihiin oo kale dhaqaaqiisu isku si ma aha haddii mid sarahan madax adag yahay waxba aanu ka maqlayn madax adaggiisu fara badan yahay isahan kaas wax barashada ku hooseeyo oo kale barashada aadka ugu liidato oo kale isku si marka waa maxay ciqaabtooda marka waa maxay ama daaweyntooda marka waa maxay noqon mayso marka saasay marka waa maxay waalidku waxa laga rabaa inay marka waxa eegaan waxyaalaha marka waa maxay munaasib ku ah ilmaha meel fiican buu gaaray maxaa munaasib ku ah marka saas oo kale marka ila shanta qodob insha Allah ta'ala ku joojinayna maanta wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam